السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة بألباني سلام مايا ميلو بادوني كل شيء الله سبحانه وتعالى كبر عمني ما ونحسن من يسيو. waxaan rabaa inaan ka hadlo dhalinyarteena dadka kuwa qaar waxaa jira rumaantii ayagoo caata ah oo iskiin ah haddana calool ay leeyihiin sabab qofka maadaama normal qofka caatada waxaa loogu talagalay in calooshiisa ay xiran tahay ama jirkiisu isla siman yahay sababtu maxaa keena asagoo caata inuu haleesho waxbaa qaldan sababtaan sheegaya marka waxaa qaldan maanta wuxuu rabaa inuu u noolaado asigoo joogo waddan qurba ah ama waddan cimiladiisa isbedesho qabow kuleel inta roob waxa inay tille asuu ka yimid waddan hal cimilo leh oo cimiladaasna ay tahay oo keliya kuleel laga yaabo inuu bilooyin qaar roob daadanayo roobkana qabow maantii ma dhalayo inta badan Soomaaliya ku nool yahay ama Afrika ka yimid wuxuu helaa qorax neutral ah vitamin D fiican siinayso sidoo kale cuntooyinka xagga ku haysto cunto nature ah ama natural ah oo tayo fiican leh wuxuu imaada waddanka ka duwan cimilo ahaan cuntooyinka ka duwan yihiin cuntooyinka inta badan kiimika leeyihiin tayadu aada iskaga liidato oo la bacriminayo si degdega lagu dhalinayo ukunta si degdega lagu dhalinayo xagga waa neutral ukunta doorada waxaa si neutral u dhalaysaa ninka odayga oo waddankaas ku noolaa qoraxdaas haysto oo hadduu wax cuno wixii cuno xataa macnaha haddii xataa dufan badan ay ku jiraan ama sokor badan oo leeyahay qoraxdaas ka dhalaalinaya saasana qurux badnaay waddankaan imaana laakiin problemku jira waxay tahay cuntada waxa ku cunaya la soo guurle intoo la imaano waddankaan aan imaano qorax ma laha qoraxda waxaa waaye 2 bilood waa ama 3 bilood ugu badnaan 3 bilood ay sheegaa laakiin waa 2 bilood normaliga okay 3 bilood 2 bilood macnaha ma wax exactly soconay inta kala qabo mitar roob baraf daadanayo boohelo xagga sulixi normal wuxuu ku cuni jiray quraacdiisa canjeeradiisa ama beerkiisa ama canjeeradiisa wuxuu ku cuni jiray macsaladiisa adiga intoo la yimid kalooriyo dalala okay qalbiga la gaaray bariiska sida normaliga ama baastada suugada hilibka lagu shiili jiray ku shiilana waa cuna caloosha loo baahan tiraa ma isweydiina wuxuu jirkaadu baahan yahay ma isweydiina wuxuu jirkaadu baahan yahay imis protein maanta u baahan yahay imis vitamin u baahan yahay isma weydiina already caloosha baahan tiraa kadib odayga asagoo saaka canjeer ku quraacday saa bariis qadada ku qadiya ama baasto oo macna suuga badan kharaam ku jiro oo xataa aan garanay inta protein ku jiro kaloori isku daldalay aadan galabta markii la gaarona baxo meel fadhi ku dira oo koobshiin cadays ka buuxo oo sokor ka badatay cadiro oo keega oo sokor lagu soo sameeyo qof walba wuxuu gadanaa moon uu soo macinay oo isku rida adag caloosha waxay ka noqotay qashin caloosha kuus ka noqotay marka brada ismaacaadta adiga ku hadlayo meel walba oo dunida ku nooshahay ama waddankan aan joogo ku noolo oo Sweden iyo Norway iyo meelsha doontaba ama ku noolo waddankeena hooyo saaxiib haltii baan ku siinaa walaalkayga tahay muhiimaddu waxay tahay adduunka sidiisa dadka waxay sameynayaan access anaga haddaan Soomaalina normal inaan dad ka daba hadalno dad wax ka sheegno maala yacni waqtigeeda ku dhimanaya inta badan u badan bulshadeena way yaryihiin inta badan dad naftooda u kaco ama wax barto ama macnaa dadaalo inkastoo ay jiraan boqolkiiba ku dhihi karaan ma ku dhahay boqolkiiba 80 iyo waxaa waaye dad xumo ma ku dhahay dad fiican waay 20ka naga xun ayaa haddana naga tiro badan oo naga muuqaalo dadka inta badan ay arkayaan muhiimadda waxay tahay tip fiican ayaan ku siinaa brada haddii aad ku nooshaa waddankan hadda anigaan ku noolahay Sweden waxaa helaysaa waxyaabo badan oo vitamin fiican ka helaysa bodigaaga fadhiis fiican ka helay inta protein maanta u baahan tahay aad ka heli kartid ugu horeen meesha ku quraacan jirta rooti iyo haddii aad ismarin jirto chocolate yar oo isdhaafin jirta ama canjeero saliid ku cuni jirto aan ku sheegay waxaa samaysaa inaad isticmaasho dad awoodid xifkidin ama mushaari YouTube intaas iyo xabad moose iyo wax yar oo caano ah isku shiidanaysaa suuxii جرجر جيت كل وشي دنا ما عبيسا يعني 4 حبة أكون أم 6 حبة أكون هذا أود بيدا كل سعر نيسا 2 حبة يلو واتوريسا 2 حبة آي فيدا يا حبة يلو كجر 6 سعر نيسا 2 حبة كنت علىها إن 2 حبة توريسا
saddex xabo cadaan ah, hal xabo jaalaa cunaysaa. Okay, subaxii dadka noloshooda macnaha bisiya soo kacaan. Tusaale ahaan oo kale ismaacaadda waxaa laga yaabaa inuu soo kaco 2 saac oo kale, 2 saac u soo kacana inuu hurdada ku daahalayaaba. 2 saac markuu soo kaco oo heavy green iyo 2 xabo ukun oo cuno, 3 xabo ukun oo cuno, waxaa ka socda 5 saac 6 saac 5 saac kale 3 saac ka soo wareegtaba. haddii uu heli karo inuu cuno asaga nafsadiisa sweet potato waa laga helaa wadankan. sweet potato iyo gasac yar oo malaay ah. malaayga gasaca adi maadaama aa caato tahay anima kugula talina haddana saliid inaad sii isticmaasho. waxaan ku leeyahay midka biyaha ah isticmaal. gasac malaay ah, hal xabo sweet potato oo ama biyo ku kari ama furan gasho adi sidaa doonto karso. sweet potato markaa cuntid 5 saac la gaaro 7 saac 8 saac oo kale markii la gaaro kale hadda awoodid malaay ama chicken. inta normally chickenka raqiis ku yahay waddankan aan joogno, chickenka midka shafka ah waliba inaad use garaysid 200 gram ama 100 gram, almost 100 gram sana 150 gram iyo wax yar oo bariis ah. sidoo kale waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho inta badan qudaarta cagaarta sida broccoli-ga oo kale. sidoo kale broccoli si u use garayna, broccoli-ga waxaa sameynaysaa biyaa dabka saaranaysaa, markay bad dhahaan broccoli-ga ku shubaysaa 3 daqiiqo bisa u qabanaysaa. 3 daqiiqo kadib waad ka dejinaysaa. dabka ha ku digin sababta tayo ma yeelanaysa dab ku dish. markaad karisid oo miirtid inuu gooskaada saarmaa inuu ka yaraa, markaas ayuu wax kuu taraya adiga. broccoli-gaaga bariiskaaga waa bakeeri bariis ah, bakeeri shaah lagu cabo ma arkino oo bariis ah oo ku cabiri baa ka gedisanaysaa. malaay chickenkin waxa waa 100 gram chicken normal ma isticmaalaysaa. okay 6 saac la gaaray 7 saac 9 saac la gaaray 3 saac oo kale ka soo wareegtay. okay waxaa jiro normal cuntooyin badan oo anaga aan helno ama wadankeena hooyo laga helaayo ama wadanka laga helaayo oo quality oo natural laakiin inta badan aan use garaynayo jiro. waxaa kamid ah salbukada kamid ah, masagada kamid ah, galleyda kamid ah, qamadiga kamid ah, misirta kamid ah. wadamankeen aad raqiis uga yihiin runaantii. haddana ma dareemi karto inta protein ku jiro iyo inta ku jirto macnaha calciumka ilayhi ma aaminaysid. laakiin anaga waxayna dadku wax hoosteena ma fiirin, wax naga saraafiirnaa. حتى dhalinyaro badan oo wadan ku nool Soomaaliya oo heli karo wax walba oo raqiis oo heli karo. adoo muusoo sameynaysaa salbuko wax yar salbuko iyo ama misir ku darsaa dhow markay bislaato ama ku darso masago aad intaarti mix kare ku shubo wax yar karso. waxaa cunaysaa saarkaasa misirtaasa cunaysaa ama iyo salbukada iyo wixii aad ku darsanaysaa inuu waxa adiga jeceshahay. waa ku ogaan macmacaanka aad jeceshahay. ismaacato wax yar oo sokor ku darso, iskana ilaali sokor tiro badan sababtoo wax caloosha kaa buuri waa intaas oo jirkaada kala dhiman, meelna kuus ka dhiga meelna caata ka dhiga. saas markii gaaro 10 saac 11 saac ama 12 saac markii la gaaro normaligaada hadaad awoodid oo tisraad oo baahan tahay dhib ma laga ku ceshan kartaa. salbukada ku ceshan kartaa dad baahan tahay wax yar oo kale isjuus garan kartaa sababtoo waxaad ka helaysaa kaloori badan oo jirkaada u baahan yahay ka helaysaa. waxaad ka helaysaa fitamiinaad badan. okay waxaa isweydiin wal subax wax kusoo quraacata heavy, waxaa kusoo quraacata yidkubki iyo banaanihii, wax quraac 3 xabo oo kun ah. okay waxaa haystaa 18 gram oo waxaa haystaa oo protein ka haystaa subax imanka cunto. qadadii kale markaa daa use galis gasac malaay markaa sweet potato isticmaalaysid gasac malaay wax ku jiro 24 gram oo protein ku jiro man meesha waxa ku haystaa like you know like 40 gram protein maalintii. okay kaloriga amaad use garaynaysan jirkaada ab garaynaya oo ku weyneynaya soo jirkaada kale u soo kobco maadaama aad raadinayso kalori badan oo jirkaada kobcinaya. sidoo kale salbukada iyo ciyaar umareyn wax aad u qiimo badan. waxaa laga yaabaa in ku baraarugsaneen dadka Soomaaliya ku nool. brother Soomaali aad u raqiis uga yihiin malaayga
waxaa heli kartaa malaay oo raqiis ah $1 jooga Soomaaliya. sidoo kale ukunta waa natuur, waa wax natuur oo heli kartid oo ukunta caadi u heli karta iyadoo la bacrimin. 3 xabaa maalinta ama 2 xabaa ama 3 xabaa ka use garaysa enough, more than enough. Okay, habeenkii kale hadda ku cashay sidoo kale digirta aad ay muhiim u tahay. dadka ma wada yaqaanaan digirta iyo salbukada iyo haddaad badsatid brother protein u baahan almost brother. waxaa la yaabaa inaad ku fakaraysa jimina aad proteinka lagu dhowraa qiimahaas ku fadhiya aadana awooda. laga yaabo inuu $50 lagu dhowro $60, laakiin adiga aad awooda. laakiin maxaa awoodaa? waxa awoodaa proteinka waxa aad ka heli lahayd in la eg aad ka helaysaa cuntada oo raqiis ah oo natuur ah. border oo la qasanayo wax macnaa kugu fadhiyo waxaad ka heli kartaa ayadoo natuur ah heli kartaa. marka waxaan ku leeyahay dhalinyarta Soomaaliya joogan waxaan leeyahay sidoo kale ayaga naftirkooda mushaari Soomaali waa laga helaa, ukun waa la helaa raqiis waa, malaay sidoo kale raqiis waa. wuxuu u baahan yahay bisle oo qiimihii inuu samaysto sidoo u use gareyn lahaa. agaadaad ka soo kacda 1 saac subaxnimo Soomaaliya joogtid, 1 saac habeenka mushaaridaada iyo ukuntaadii waxaad ay use garaysid. markii subaxii aad 1 saac tahay adiga 3 saac oo kale hadana aad use garaysid. macnaha maxay tahay sweet potato batati ayaa xagga batati gasac malaay hadana cabaarkii dibida macnaha use garaysid. waa qofkii rabo jirkiisa inuu wax ku daro, miisaan oo neutral ah, in ay macnaha caylaad adoo cayil raadina aad waxyaabo qashina cuntido kale macaan badan, pizza, chipsi, waxaas caafimaad ah. boodigaada caafimaad ma miisaan koran wax caafimaad ah ma noqonaa. waa wasaq ilaa cunaysid. inuu waxaa ilaa ismaacato isku dadaal barada dadku way tageen adina waxa ku leeyahay hor u soo hormo wanaagsan ku tilaabso. waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doontiin. adaan ku leedahay ismaacato si fiican fiiro barada sadkay barada.